arrin kale oo hagardaamo weyn ah ayaa ka taagan degmada Salaxley. Shacabka degmadaasi ayaa iyaguna hadda ku hambabaray qorshe komishanka doorashooyinka qaranku kula kaceen in ka badan 300 oo tuuro oo hoostaga Salaxley waxaa la siiyay 3 sanduuq oo qura, taasi oo loogu talagalay inay shacabku isku diiwaangeliyaan. Arrintaasi waxaa gaashaanka u daruuray dadweynaha deegaanadaasi oo ku tilmaamay inay dhibaato weyn ku tahay shacabkii isdiiwaangelin lahaa si ay codkooda ugaga aarsan lahaayeen xukunkana uga tuuri lahaayeen Muuse Biix Cabdi oo fashil ku soo dhamaaday 5 sano ee xukunka hogaaminayay Somaliland. waxaan ka hadlayaa mowduucyo raggii ay ku habooneed ambalaha ay gabeen tan xildhibaan waxaan ka noqday maayirna waan ka noqday egas maayirna waan ka noqday waxyaabaha maanta ka taagani hore may uga taagnaan jirin mar kasta oo dalka doorasho ka dhacayso komishanka qaranka golaha guurtida golaha baarlamaanka waxaanu u gudbin jirnay baahidayada deegaan goobo kordhin iyo wixii kale ee soo raacaba waxyaabaha maanta madaxayga ka weynaaday ee maskaxdaydu qaadi kar leedahay ee aan la yaabay fariimaha isoo gaadhaya oo ah degmada dhan ee xukunta 38 daabiyadood xukunta ee 86 kililka ku yaalaana dadkoodu u soo gudbo 3 sanduuq ee la sheegayo halka lagaga hagaajin amba halka yani Salaxley dhexdeedu oo kaliya wax ma ka qaban karaan waa mada in diiwaangelin laga sameeyaan la damcin in cod yani dadku uu codeeyaan la damcin in dadku kaarka uu qaataan loogu tala gelin waxaan anigu halkan ka qeexayaa oo aan sheegayaa waxaan aan ku hadlayo cidii lahayd waxay ahayd maayirka degmada iyo xildhibaanada la soo doortay baahidu khusayso dhaliishu khusayso ceebtu khusayso ay khusayso waxa dadkooda iyo dalkoodaba khuseeya oo khuseeyo وسأ مسلمين وحي دلك يجا يدلك يجا بدليل كوا واك هاد لينا وحن لا هاي وأنا شيء يا أمة الرئيس ومال اللي جودها يدب وحن لا هاي وأنا شيء يا كلها جور تذكرها كتمرد الصومال يا كلها برلمان كبا وحن شيء يا كلها كوميش كقرنك وحن الصور دقي يعني هي dhigaha dadku una ay maqlayaan indhaha dadku ay arkayaan wax qaab doorasho loogu talagalay maaha dadku waajibaadka iyo xaq u leeyahay hal mariyo 18 oo kiiloomitir 3 sanduuq maxay ka qabtaan war maxay ka qabtaan goobaha degmada ee sanaadiiqda oo aan la oran bakarin de sanaadiiqba la keenay oo lagu yar xitaa lama oran karayo marka aad isu qiyaasto bedka dhulka degmada hoos yimaada iyo 3 sanduuq la sheegayo boqolkii 1 ma hade qodobkaas ayaanu ka hadlaynaa ka deegaan ahaan ayaanu ka hadlaynaa waxaanu leenahay aad iyo aad xataa ma oran karayna way nagu yar yihiin de ma jirta ayay ka dhigmaysaa marka la soo eego bedka dhulka ee deegaankan degmada hoos yimaada Salaxley iyo 3 sanduuq ee loo soo qorsheeyay waxaanu leenahay halka mas'uuliyadeedii waa la gabay cadaaladna laga gaba hadal sanadiiq baa la keenayna lama oran karayo waayo waxa kala badan bedkii dhulka iyo 3 sanduuq taasi waa qodob waxaan raacsanaya iyadana hadii dadka loo waayay in sanaadiiq la soo kordhiyo marka hore sanaadiiqda hal soo kordhiyaan leenahay ka deegaan ahaan hadii aanay dhacaynin taasi halo aan la siiyo baan leenahay waqti ka badan muddada la sheegayo oo aanu goobaha iyaga 3 geysan karno meelaha durugsan degmada Salaxley baaxadda ay ku fadhido iyo intay la eg tahay
cid walba way garanaysaa waxa maanta saddexdaas sanduuq in waxay ka kafeynayso cid walba way garanaysaa marka ciddii horta ka hadli lahayd oo shaqadaa lahayd oo hawshaa lahayd oo waajibkeedu saarnaa dee isma garanaysee waxay ahayd golaha deegaanka iyo cidda degmada matalaysa ee dowladda ugu jirta marka sidaa odayaasha kaga horreeyay ay sheegeen dee waxaad moodaa inaan loogu matalagelinba reer Salaxley muwaadiniinta reer Salaxley waa gobol ma aha degmo waa gobol marka in muwaadiniintaas xaqoodii iyo codkoodii yaa kaar qaadashadoodii intaba in la aasay oo la dulmay horto dee diiwaangelin marka la sheegayo iyo dhulka ay tahay Salaxley isma laha 3 sanduuq waxba kama kafeynaya waa diiwaangelin kama dhicin meeshaas ay la macno tahay marka ayaga haday la macno tahay taa maaha in la yiraahdo horto waxaan codsan lahayn marka hore in loo kordhiyo muddada waayo 15 cisho iyo 35 tuulo isma laha iyo 3 sanduuq ma garata haddii la badankeedu leeyahay talabaad waxa weeye ciddii xaqan lahayd amba xaq loogu lahaa inay soo kordhiyaan sanduuqyadaas waxay hayaan golaha deegaanka ee degmada Salaxley taana ilaahay muu garansiinin waana hadduna markii hore ilaahay garansiinin imakana waxaan leenahay hawshaas idin taalaaye sidii ugu soo bixilay idinkeedin jirta taas waa taayado